waxnoo dhiman maanta oo aan ahayn anagoo madaxtooyada dhexdeeda joognay intaan gacmaha dhiibno aan isdhiibno oo dhahno madaxweyne anagu waa isdhiibnay man jirto waxaan ahayn oo noo dhiman ma dagaalami karno umaanan diyaar garoobin hub umaanan tabcan lama mid maahin dowlad goboleedyada dariska anaga ah bismillaahir rahmaanir rahiim anigoo wasiirkiisa halkan waxaan rabaa inaan ka jeediyo war saxaafadeed aan rabaa inaan kula hadlo bulshada reer Galmudug iyo bulshooyinka Soomaaliyeedba salaanka bacdi wayahanba waxaa jiray ishuursi siyaasadeed iyo khilaaf ba'an oo soo jiitamayo anaga reer Galmudug ah isfaham waa uu nagala dhaxeeyay xukuumadda dhexe ee federaalka Soomaaliya shalay madaxweynaha oo ka qudbeeyay goob fagaara oo ciidul carafa lagu la tukanayo bulshada wuxuu noogu iclaamiyay dagaal ka dhan ah xukuumadda federaalka ee Soomaaliya inay Galmudug galayso madaxweynuhu anagu ma aanan diyaar garoobin reer Galmudug inaan dagaal la galno xukuumadda federaalka ee Soomaaliya afarta gees ee dhulsamareeb maanta waa xiran tahay meel aan madaxtooyada ahayn oo noo furan ma jirto xarunta baarlamaanka oo madaxtooyada daliskeeda ciidan baa jooga xaruntii inji ciidan federaalaha jooga controlkii labada control magaalada laga soo galay ciidan federaalaha jooga airportka caasimadda iyo airportada Galmudug oo dhan ciidan federaalaha jooga tan iyo xalay iyo tan iyo shalay waxa ku soo gurmay magaalada gudaheeda ciidan federaal oo xananbuure iyo xarar dheer iyo xananbuure kala imaanaya intaas oo dhan hadal si fudud afkaaga uga soo baxay ayaana gaarsiiyay madaxweynayn intaas in la eg oo ceeb oo sharaf dhaca anaga ay nagu soo aado wax noo dhiman maanta oo aan ahayn anagoo madaxtooyada dhexdeeda joognay intaan gacmaha dhiibno aan isdhiibno oo dhahno madaxweyne anagu waa isdhiibnay man jirto waxaan ahayn oo noo dhiman ma dagaalami karno umaanan diyaar garoobin hub umaanan tabcan lama mid maahin dowlad goboleedyada dariska anaga ah nugula jira xubnaha ka dowladda federaalka Soomaaliya sidoo kale umaanan diyaar garoobin waxaan maanta kala hortagno anagu xukuumadda dhexe iyo madaxweyne Xasan Sheekh midna ma jirto adiga siyaasadda nagu hogaamiyay adiga yiri waxaan ka tirsanahay xisbi JSP adiga shiranta noo qabtayna yiri xisbigaas lagu daba faylo xisbigii baan ku daba fayshannahay xukuumadii aad tiri hal raacsanahay kaama filanayno saacadii u dambeysay aakhir min saaca inaad madaxweyne intaad kaamarada hor timaadaadna tiraada dagaal baan galeynaa waayo sanadeed ba maan hayno maanan tabcan fooxii madaxweyne shalay lagu dhiibahay anagu lama hortagi karna ciidankii qaranka lama hortagi karno wiilasha ciidanka nabadsuguda iyo militariga iyo booliiska foox muxuu yahay wasiir madaxweynaha anaga shalay markii uu noo iclaamiyay in dagaal la galo halkii aan ka filaynay sanad iyo cudud ciidan uu diyaariyay inuu noo keeno iyo wuxuu noo keenay baaquli weyn dabqaad weyn oo uu foox ka daaran yahay oo inta madaxweynaha lagu wareejiyay leeyahay shuushkaas ayaa baxaya madaxweyne JSP iyo dowladda federaalka ee Xasan Sheekh Bashuush maaha kuma baxayaan dabqaad ma ku baxayaan wixii aad iclaamisay baa Galmudug ka taagan go'doonka aan ku jirnay iyo xaaladda aan taaganahay wada aragtaa jidadku niima xirna miya iyo garoonka ma wax jid oo noo xiran male qof dagaalama ugu yaraan meel buu difaac ka xirtaa caasimadda anagu hadda aan joognay aan rabnay inaan ka talino dadkana aan doorasho iyo nidaam dawliga inta baan ugu sameeynahay iyadii baa furan iska dhaaf xarunta baarlamaanka oo nus kilomitir madaxtooyada u jirta yaa ciidan federaal u hor fadhiyaan xarunta injiya ciidan ku jiraan dhulsamareeb ciidanka jooga ee Galmudug iyo 200 oo nin ma dhama 20,000 oo ciidan oo federaalna waa joogaan aqliyada waxaan rabnaa dadka inaan u sheegnay waa maxay qaabka la isku difaaciyo meesha lagu dagaalayo difaac waa naqaanaa difaac inuu qofku banaan u baxo meel difaac xirta ama magaalo qabsada oo leegama soo gali karo magaalo noo xiran anaga ma jirto magaalo aan ku dagaali karnaa anaga oo Xasan Sheekh ku dagaali karnaa ama federaal aan ku dagaali karnaa midna ma jirto madaxweyne waa ka hoostay waa ku aqal celinayna waa ku tal celinayna ma ahan tanteeni ma ahan shakhsi baa tahay ma dhowran karno ceebtanada iyo ceebtaada anagoo iswada dhiibayno gacmaha taagayna ma dhowranayno anagoo sida sawirada laga soo qaaday sidii ciidamadii kamid ah qoryaha inta dhig gacmaha taagay in la arko anagu ma doonayno maanta maryaha anagu cad yihiin dalka dawlad federaalaha ka jirta ayadaan hoos tagaynaa ayadaan isku dhiibaynaa iyadaan kala shaqaynaynaa doorasho qof iyo cod inay dalka gaarsiiso iyadaan hogaaminaynaa musharax ay keento iyadaan hogaaminaynaa dawladnimada ay keento si sharaf la isku dhiibna la sharaf la in la isku dhiibo yaa madaxweyne anagu soo jeedinaynaa sidaas aan isku dhiibaynaa maanta ma ahan ma dagaalami karna anagu maxaa keenayo adinkoo madaxdii Galmudug inaad si fudud maanta aad leedahay inaan isdhiibnaa wacan sababta ay u wacan tahay inaad isdhiibtaan oo dagaali la adihiin oo adoo soo koobayo maxaa keenay mawlid waa maasan tahay anagu ma aanan diyaar garoobin horta niman dagaal gala inaan noqono ma aanan diyaar garoobin mana aan tabcan tacabkeedba kaliya anaga waxa noo tabcan ummadda dariska iyo ummadda Soomaaliyeed baa dhan waan aragtaa ma ahan u baxan la horteegi karna hadda cudud ciidan inaan la horteegi karna ciidanka dhabta ee Galmudug haysta waa imsa 200 oo askari oo madaxtooyada jooga
oo waliba saraakiishoodu ay military yihiin madaxtooyada ma ahana meel kale oo aad gacanta ku haysaan hadda ma jiro meel kale oo aan gacanta maxaad suganaysaan marka in la qabto waxaan ahayn ma suganayna sidoo hadda uu rabay inuu anaga madaxweyne Axmed Cabdi Kaari nagu hogaamiyo waa in halna loo qabto asaguna hadhow intii heshiis galo oo sidii mid kamid ah saaxiibada kulanta diyaarad iska raaca oo iska baxo sugaya cid uu baabi'inaya marka sharaftiisa kaliya ma ahane waa dhammaan muwaadiniinta reer Galmudug gobol degmo iyo tuulo matalaysa ee asaga hoos joogta ee hadhow sharaf darro iyo sumcad darrada lagu qabanayo kuwaas oo ay ku dhaawacayo mustaqbalkooda siyaasadeed ma ahane kamana yeelayno inuu anaga reer Galmudug wiilasha uu rabo inuu isku baabi'iyo wiilashanadii beelaha wasiiradoo dhan waxaa loo diray beelahooda loo diray oo la yiri ciidan ka keena maxay la kulmeen wasiiradii ciidan bay waayeen balantaa waxa Soomaalida waa lagu soo hungoobay ma jiro beel Soomaaliyeed oo maanta laga dhaadhicin karo keena wiilal laga horgeeyo ciidamada federaalka la diraya keena ma jirto dhammaan wasiiradii madaxweynuhu u diray deegaanada oo uu yiri ciidamada ka keena iyaga lafahoodii la soo cararay oo ayagoo carar dhuusan reeb ku soo wada laabtay suurtagalna ma han aqliga bini'aadamkuna maanta ma aqbalayo qodob beesha caasimada dhuusan reeb bal filayay inay taageerada madaxweynaha iyo Galmudug iyo madaxdiina maxaa ayaga sabay inaan wali wax technical iyo wax uba laga helin maya warkaas dhacaayad raqiis oo la faafiyo waa beesha caasimada deganu dagaal waa ka soo daashay dhuusan reeb dagaalkii lixaad iyo martay 20 sano gudahood muddo rubac qarniga ka yar waa burburtay ayadoo aan dabaqyo lahayn laamiyo lahayn horumar dawladeed aan lahayn intaas rafaada martay maanta guriyahooda muraayada ay ku yaalaan dhuusan reeb diyaar uma aha inay u dirirto una dagaalanto nidaam sharci darra inuu dagaalanto uma diyaarsana dhuusan reeb marka ma waxaad leedahay maadaama aan sharci darra ku wada joognay qolada aan fila Soomaaliya iyo annagu hadba sharciyadii awood leh waa in loo turaa maya waa sharciga waa in lagu shaqeeyaa xasaanad baa lagu dagaalami karaa hubku maanta sharci buu leeyahay Soomaaliya cunaqabateyntii waa laga qaaday beesha caalamka oo dhan baa daawanaysa sharci darro qori ku dhici kara Galmudug sharciyadii waa ka dhamaatay madaxdeedu waa ka dhamaatay federaalkana waa ka dhamaatay marka laba sharciyo dad aan sharciyad haysan seeba isku maquunin karaan ma awoodunba mawlidow Galmudug sanadkii toddobaad baa hadda u sii dhamaanaya waa sidii dhalanaysa sidii jir bay dhalanaysa anagoo meesha joognaa madaxweyne Xasan iyo xukuumaddiisu ay inoogu yimaadeen waa seasonkii labaad oo ay madaxweyne la dhamaysanayso waxa isbedelka u baahan maanta waa xukuumadda Galmudug madaxweyne Xasan Sheekh iyo xisbigiisa dastuur bay ansixiyeen dastuurkana muddo kordhin hal sanaha ugu jirtay Soomaali weyn baan kala qabnaa wixii laga yeelayo xukuumadda Xasan ummadda federaalka ee dowlad goboleed oo dhan baan kala qabnaa laakiin anaga reer Galmudug xilliga aan taaganahay ma aan xilli aan dagaalanay xilli aan dalka dhinac ka raacno dadka anaga aan la shaqeynaa waa xilliga aan taaganahay